munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen maamulihii hore ee madaxtooyada magaalada Qardho iyo maamulaha cusub ee madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani xilkaasi uu soo magacaabay dhawaan waxa goobjoog ahaa maamulka gobolka Karkaar duqa degmada Qardho taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar taliyaha ciidanka madaxtooyada degmada Qardho xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka Karkaar sidoo kale marti sharaf kala duwan oo ka kooban waxgarad dhalinyaro haween ayaa lagu casuumay munaasabadan duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Ismaan Dheer oo ugu horeyntii goobta ka hadlay ayaa sheegay maamulihii hore ee madaxtooyada magaalada Qardho Cali Baashi Saciid oo Muuse inuu ahaa shakhsi wax badan soo qabtay mudana ay soo wada shaqeeyeen waxana uu soo dhaweeyay Cali Axmed Saciid oo xilkaasi dhawaan loo soo magacaabay oo halkan saaka ay ka dhaceyso xafladda ay kula kala wareegayaan xilka runtii madaxtooyada toonteedisnayd wax badan baa lagu soo caanamaalay agaasime Cali runtii wax badan buu soo qabtay insha Allah waxaan rajaynaynaa agaasimaha cusub oo yimina inuu meeshii ka sii abaqaado maamulihii hore ee madaxtooyada magaalada Qardho Cali Baashi Saciid oo Muuse ayaa sheegay sida ay wax u socdaan inuu ku faraxsan yahay halka maamulaha cusub ee madaxtooyada degmada Qardho Cali Axmed Saciid madaxweynaha Puntland uga mahadceliyay xilka uu soo magacaabay asigoo sheegay inuu ku dadaali doono sidii xilkaasi ugu soo dhalaali lahaa gudoomiyaha gobolka Karkaar duqa degmada Qardho agaasimaha guud ee madaxtooyada og madaxweynaha dawladda Puntland ujeedo xil wareejin mudane maamule anigoo Cali Saciid oo Muuse maamulihii hore ee xarunta madaxtooyada Qardho waxa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ii magacaabay xilkan 1 January 2016 waxaan si farxad ku dhisan tahay aan maanta ugu wareejinayaa maamulaha cusub ee xarunta oo u soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqeyn doono baahida bulshada waayo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani siyaasaddiisa ayaa waxay ku qotontaa in laga shaqeeyo baahida dadweynaha si loo gaaro si loo helo adeeg dawladeed oo tayo leh runtii taas anigoo raacaya ayaan waxaan ballan qaadi doonaa inaan ku shaqeyn doono baahidiina inaan ku shaqeyn doono qorshaha dawladda oo ka turjumaya baahidiina dhammaantiina waxaan si wada jireed kaga codsanayaa inuu soo wada jira oo taqaanay midnimo leh uga wada shaqeyn danteena intaasi kadib labadan mas'uul waxa xilku kala wareejiyay gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye gudoomiyaha haweenka degmada Qardho Cambara Shirtag taliyaha madaxtooyada degmada Qardho taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar iyo marti sharaf kale oo goobta ka hadlay ayaa si weyn waxay u sagootiyeen maamulihii hore ee madaxtooyada degmada Qardho ayagoo soo dhaweeyay maamulaha cusub ee xilkaasi dhawaan loo soo magacaabay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa agaasimihii hore sidoo noola shaqeeyay iyo wanaaga iyo sharafka uu noo yeeri jiray kana waa ka sugaynaa insha Allah sidoo kale inuu noo soo dhaweeyo oo albaabka naga xidhanayna soo dhaweeyo markaan soo dhaweynaha gallo aan soo dhaweeyo agaasimaha cusub hawl culus baa u taal waxaan nala shaqeeyo aan wada shaqeynaa waxa muhiim ah agaasimaha cusbaana waxaan leenahay shaqada ku soo dhawow Allah uu fududeeyo isbedelku ma ahan qof uu shaqaysan waayay ama shaqada uu gabay waa sunnaha dawladda in la isbedelo waxaan rabaa kale inaan ka bakhaarta kaco agaasimaha cusub ee madaxtooyada Cali Axmed Saciid annagu waxaan nahay dad dhalinyaro ah oo muddo waxbarashada ku soo wada jiray oo runtii waa nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo aan ku aqaan inuu wax badan ku soo kordhinayo oo aan dareemayo tayada shaqaalaha jooga madaxtooyada waxaan leeyahay agaasimaha xilka wareejinaya saakay wixii soo qabatay وفلله الحمد وكوغب صومين وixii haatan ka khaldamena ilaahay idankiis xaqiisan dambi dhaaf kaaga weydiinayna agaasimaha xilka cusub ku soo biiray waxaan leeyahay sidii loo wada shaqeyn jiray iyo si ka sii wanaagsan dhammaan waxa laga sugayaa shaqo wanaag Islaan Maxamuud oo cilmi oo kamid ah simada Puntland ayaa ka hadlay goobta asigoo sheegay inay wanaagsan tahay dhalinyarada maanta in chance la siiyo waxaana munaasabadan oo muddo socotay soo xiray gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye waxaan rabnaa inaan u ducayno in Ilaahay u fududeeyo xilkaas xalina waxa laga rajaynayaa wax badan baa dhalinyaro waxay ku doodaan dhalinyaradu xilalka waxa iska haysta odayaal marka dawladda tayo iyo tiigsina waxaan moodaa inay priority koowaad iyo kan labaad inay siinayso dhalinyarada marka waa la isu minan fadhiyaa
هذا واحد بقى اللي يرى كوا عند عوتين يراهدان حلها نودي بحلها نودي بحلها نودي ليدين دي بي هذا حفيز مدحوينها وحكى صوب حوض ولا اللي يرى من اللي يرى بالماشى وكفر تاني وارك دونا مقرتين يمشي وحقيسانين واحد يدير رجينا إن شاء الله تعالى إن واحد بدنا قبل دونتان وقتي إننا كفاية دونتان لو كحبوا ضياش وأنا وكم إذا هي سهرنا إذا كنت سهرنا واحد رجينا إن إسكر عدونه ما قرناش ضياش هذا لكن هذا واحد وحيرت هاي حتى سيدا عندك وحبوا جسار maamulaha cusub ee madaxtooyada degmada Qardho Cali Axmed Saciid ayaa kormeer ku kala bixiyay xarumaha kala duwan ee dhismaha madaxtooyada magaalada Qardho sidoo kalena waxa uu la kulmay shaqaalaha madaxtooyada magaalada Qardho Yaxya Nuur Muumin warbaahinta dawladda magaalada Qardho